Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada lisankeena maanta. Maanta qaybtan waxaan kusoo qaadan doonaa 5 cashir oo aan ugu talagalnay inaan kusoo koobno barnaamijka loo yaqaano Bonicle Studio oo ah mid fudud oo ay isticmaalaan inta badan saxafiyiinta Soomaaliya ka hawlgashay intooda badan. Ma ahan barnaamij fiican oo loo isticmaalo video editor, laakiin wuxuu u fudud yahay dadka badankoodu inay codka iyo muuqaalka isdul saaraan iyo waliba sawiro iyo qoraal yar oo kooban oo ay ku dul qoraan. Marka sida uu u fudud yahay awgeed ayaa dadka badan u isticmaalaan, laakiin ma ahan barnaamij aad u qurux badan oo ku fiican in video film editor loo isticmaalo maaha, laakiin xogaa yar oo ribooda waad ku samayn kartaa. Haddaba marka 5 cashir aan ugu talagalnay ayaan doonaynaa inaan idin dul marno oo si kooban oo dhameystiran inaan 5 cashir u wajahno eebaha wadal ogolaado. Cashirkeena koowaad ee maantay waxaan ka bilaabi doonaa sida xog loo soo galsho iyo sida loo isticmaalo horta. iyo markaad save garanaysid qaybta dambe ayaan ka dhigan doonaa muuqaalka shaashadan halka ka muuqato Bonicle Studio Bonicle ku dhex qoran tahay waa meeshii ishii wax laga arkayay ama shaashada wax laga arkayay. halkaana waa track point, waa meeshii videoga iyo maqalka la soo dhigayay. halkan waa meeshii maqalka la dhigayo, codka video la dhigayo aan raade. halkan waa sidoo kale meel video la dhigayo. halka tiida waa meesha qoraalka lagu qorayo, textiga lagu qorayo. halkan labada meelood oo audio ay ku qoran tahay labada calaamadood kala duwan waa meeshii loo isticmaalahayay codka maqalka. codka maqalka meesha la soo dhigayo weyn. halka marka qaybaha hore hadaan dul maro, qaybtan waa videoga, meesha videoga markii wixii video ku shaqale meesha laga soo gelinayo weyn. halkan waa barnaamijyadan wax lagu qorsheeyo transitionka. halkan sidoo kale marka hordhac barnaamij u sameynaysid ayaad ka sameynaysaa lambar yar rogmanaya way wax weyn ma tani. halkan waa meesha tiida oo textiga laga soo gelinayo qoraalka. halkan waa sawir pictures laga soo gelinayo. halkan codadka laga soo gelinayo. qaybaha ayuu leeyahay. marka kaliya waxaan doonaynaa muhiimadda ay tahay hadii aad joogtid barnaamij background leh, hadii uu green screen oo kale ay isticmaalaysid inaad colorka ka bedeli kadib ayaa si fudud lagu tusinayaa. marka qaybteena koowaad waxay noqonaysaa sidaan codkaan u soo gelin lahayn. marka koowaad video waan rabnaa inaan dhex keeno. videogan horeeto iga tir waa video hore original ah meesha ku jiray oo Bonicle Studio. marka hadaan doonayna video soo gelino halka ayaan gujinaynaa, kadibna waxa leenahay meeshaan ka soo qaadan lahayn baan sheegaynaa oo waxaan u raadinaynaa computerkeena desktopkiisa kale waxaan tagay halkaan aan tagay waxaan soo qaatay waxaan furay folder baan furay, kadibna folderka markuu furmay okay weli lama furin waa ku noqonaynaa xogaa culays buu iga noqday. waxaan tagnay halkaan aan furnay, kadibna waxaan tagnay videos, xabad kamid ah videoska ayaan soo qaadanay. markaan soo qaadano waxaan rabnaa inuu halkaan noogu soo dejiyo video. inta marka loadka uu sameynayo cancel baan dhihi karnaa. cancel daan dhaano toos buu noogu soo galaya, macnaha waqti dheer uu isaga qaadan baan rabnaa. video waa kan marka halkaan yar oo ka muuqda, kadibna waa soo jiideynaa muuska cadaadinayna. halkan ayaan soo dhiganaynaa. halkan ayaan soo dhiganaynaa. marka codkiisa waa kan, halkaana waa muuqaalkii. okay hadaba muuqaalkiisa u muuqanaya. muuqaalka halka waxaan doonaynaa inaan jarno. marka jaritaanka la dhawa jaritaanka waxa loo adeegsadaa qaybta ayaa loo adeegsadaa ama se computerka esta riixaysa sida hore aan ugu soo aragnay competition oo kale. esta marka riixnay qaybta dambe dhan buu la kacay. lama rabo marka in saa naga noqdo inaan kala gooyno bis baan rabnaa. control z dheh noo soo celi. waxaan rabnaa inaan gooyno bis. markaan laba qayb ka dhignay ayaa qaybtii hore ayaan iska gooynaynaa. qaybta dambe oo naga gooyay automatic meeshii uu ka soo bilaabayay. okay codkan marka waa dheerayn ka dhawaa gaabin ka halkaan qaban karnaa. codka markaan doonayna inaan iska gaabino asaga halka marka qabatid waxa sameynaysaa marka calaamada u bedelantaa hoos u jiisa codka.
codka marka waa ka xirnay haddaan doono inaan dheereyno calaamadda markay ay noqoto calaamadda yar codka ah ayaan qabanaynaa muuska riixaynaa waxaan u dhaqaajinaynaa kor ayaan u dhaqaajinaynaa kana wuu kala hara marka laba qayb buu naga noqday laba dhibicda kale waa inaan tan kale ka daba geynaa waxaan sameynaynaa marka dadka tartan ku jiray halkaas nooga muuqdeen haddaan doono inaan gaabino waxaan ka dhigaynaa waa gaabinay okay meesha markuu marayo ayuu dheeraanayo codka kor soo aadi doona meesha calaamadda hadda ka muuqanayso okay waka marka sidaas ayaa codka Pinnacle Studio loo gaashaa jarjaritaankana waxa weeyaan halkaan marka hadda waxa ma jari karno laakiin markuu uu sida noogu dooran yahay oo meeshan uu active yahay ayaan wax ku dhufan karnaa calaamadaas ah u muuqanaysa triangle-ka kaleeto triangle-ka laydiga oo u muuqanaysa sida laydigii ma ku dhufatid maxaa dhacaysa qaybtan lagu jaray iyo delete riixaysa computerka okay dadana ina cod hoos keeno maqal codkii caadiga ahaa oo codkii kan waa muuqaalkii codkii gaarada doona in hoos dhigo waxaan sameynayaa sidoo kale codkan waxa laga xiri karaa halka ayaa laga xiri karaa halkadan ku dhufdo wax cod ma leh macna codka saas uu xiri karaa video-gana halkaas ka xir qufulka ka saari karaa dadoonis aan la arkin halkaas ku dhufanaysaa meesha marka lagu dhufdo la arki maayo macnaheedu saas weeyaan okay misana waxaan soo qaadanaynaa cod ayaan doonaynaa inaan soo qaadano marka labadan qaybood ayaa ku shaqale music song marka tan hoosaan ku dhufanay waxa dhacday in halkaan la geeyo kadibna waxa leenahay meeshan ka soo qaadan lahayn raadinaynaa waxa leenahay computerkeena dhexgee cajaladana dhexgee kadibna waxa tiraahdaa h taawse heeso helno heeso waa kuwan heesahana hal mid ka mid ka soo qaadanay baraanbur ma rabnee hees caadi nooga soo dhig okay waa soo qaadanay waa kuwan halkaan ku keeno dhamaantood halkaan la soo dhig midaan doona ka dooranayna mid baan kaga soo dhignay halkaan aan keensano hoose waxa aragtaa cancel iska dhig waxa intuu wareegayo codka waa noo soo geliya markasta hawa noo soo gelin way soo jiidnaysan okay intuu socdo noo daa cancel video cancel ku fiican okay haddaan doonayna in inta dambe muuqaalka ka baxsana ka jarno halkaan aan imaanaynaa active aan ka dhigaynaa meesha aan xariiqdana waxa dhiganaynaa meesha ka goyn lahayn kadibna waxa leenahay build kadibna delete ma taabanayna qaybtii active ka ahayd baa tirmaysa okay marka aan fiirino okay saasuu noo noqday haddaan doonayna marka sawir soo gelino picture baan doonayna ka sokeeyo inaan sameyno ka sokeeyo wuu ku aadamaya laakiin kaasi mid ka shisheeyaan doonayna inaan keeno oo ka shisheeyo meeshan dadku aan ku yaacayaan ay noqoto waxaan ka dhigaynaa inaan sawir raadsano ayay noo noqonaysaa halka ayaan madaxaana ka dooranaynaa kadibna waxaan leenahay computerkeena dhexdiisa nagee halkaasaan folderkaan taabanaynaa kadibna waxaan leenahay meesha wax ka soo qaadan lahayn raadinayna cajaladaan soo helnay cajaladaan halkaan ka ku dhufanay kadibna waxa soo qaadanay jidka ayaan soo qaadanay sawir ah okay sawirada waa noo soo galeen ayagoo dhamaantood kana soo qaadanay mid kamid ah halkaan soo dhigan okay darbiga uu qabto ma ka yeelay inuu kugu soo dhaco laakiin darbiga hortiisa dhigaysa kadibna xagga u durkin kara marka kadib saas u kala bixin karaa marka u kala baxsho ha dhacday inuu wali ku yar yahay oo darbiga dhan uu soo wada gaarsiisanayn ayaa dhacday yahay okay marka sidaas ay noqotay uu ka sheeyaa marka dadka iyo kan kii koreeya asaga muuqanaa marka xagga nooga dhig okay xagga hoos kan noogu soo dhig kan moo yeela in hoos soo aadi
maqalkii iyo codka kala saarmay oo kii kala tan kor buu fuulay marka waxa u jeedaa asaga kan hoose markaas muuqana kan kore kan hoose muuqda sida ayuu codkiisu barnaamijkan yahay weeyaan Binocle Studio ka duwan yahay kii hadda aan soo aragnay marka sida loo soo galsho iyo kuwan sida loo isticmaalo ayaan maanta joognaa kuwan hore sida loo isticmaalo qoraalkii iyo sida loo isticmaalo waa wajiga koowaad casharka koowaad buu noqonayaa casharada afarta cashar noo hadhay ayaan ku dhameystirnaa aabaha wada loo galaado laakiin inaad muuqaal dhex keeni kadib codkiina hoos soo dhigi kadib video kor dhigi kadib ayaan maanta ku baranay iyo waliba si Binocle loo soo furo intaas ayaan ku soo koobaynaa casharkii koowaad ee Binocle Studio oo kamid ah tooyinka la isticmaalo sida fudud loo isticmaalo fiirshin kala duwan ayuu leeyahay laakiin 20 21 iyo 19 fiirshinada ah computerkaagu ma soo kicin kara sida badan uu ka culays badan yahay barnaamijyada waaweyn oo loo yaqaano Adobe After Effects casharka taxanaha ee ku guda jirnaa intaas aan casharkeena maanta ku soo gabagabaynaynaa Class Academic and Technology iyo Cabdinaasir Axmed ee soo jeedinayay haddii muuqaalkan ku xiisay gashay fadlan ha hilmaamin inaad xog ka noogu reebtid waliba YouTube ka subscribe saartid mahadsanidin